السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم دمان أصحابتي ku xiran kanaalka. Ramadaanku waxa uu kamid yahay bilaha ugu qiimaha badan Islaamka, waana bisha ugu fadliga badan bilaha sanadka. Qur'aanka oo ah hadalkii Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu soo degay bishan Ramadaan, sida uu Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay aayadda 185 ee suurada al-Baqara, aayadda 3 ee suurada ad-Dukhaan, iyo aayadda 1 ee suurada al-Qadr. Waana sababta ay bishan ugu fadli badan tahay bilaha kale. sanad kasta balaayiin muslimiin ku kala nool dunida ayaa sooma bishan Ramadaan xilliyo iyo waqtiyo kala duwan, iyadoo ay ku kala xiran tahay meelaha ay ku kala nool yihiin. muslimiinta qaar ayaa sanad walba sooma ku dhawaad 21 saacadood, halka kuwa kalena ay soomaan in ka yar 12 saacadood. muddada soonku waa uu kala duwanaan karaa iyadoo ay ku xiran tahay goobta juqraafi ahaan ee ku yaalo dalka iyo waqtiga sanadka. caadi ahaan meelaha u dhow dhulbaraha way ka saacado yar yihiin goobaha ka fog dhulbaraha. intaas waxaa dheer, dhererka saacadaha soonku wuxuu sidoo kale ku xirnaan karaa waqtiga sanadka, sababtoo ah maalmaha ayaa ka dheer habeenka bilaha xagaaga marka loo eego bilaha jilaalka. haddii aan hore u galno liiskeena wadamada ay muslimiintu soomaan saacadaha ugu badan iyo kuwa sooma saacadaha ugu yar sanadkan 2023, caasimada Nuuk ayaa ah magaalada ay muslimiintu ku nool soomaan saacadaha ugu dheer, taas oo gaaraysa ku dhawaad 20 saacadood, halka muslimiintu ku nool Christchurch oo ah caasimada dalka New Zealand ay soomaan saacadaha ugu yar, taas oo ah 11 saacadood. aan ku hormarno liiska wadamada ugu saacadaha dheer dhanka soonka. sidaan hore usoo sheegnay, muslimiinta ku nool caasimada dalka Greenland oo ah dal qaarad ahaan ku yaala waqooyiga America laakiin laga maamulo dalka dhaca qaaradda Yurub ee Denmark, ayaa waxa ay soomaan wax ka badan 19 saacadood, taas oo ah magaalada ugu saacadaha dheer dhammaan goobaha laga soomo bishan Ramadaan adduunka oo dhan. waxaa ku xiga muslimiinta ku nool caasimada dalka Poland ee Warsaw, kuwaas oo iyagana sooma 18 saacadood iyo bar. muslimiinta ku nool caasimada dalka Iceland Reykjavik sidoo kale waxay soomaan 18 saacadood iyo 12 daqiiqo. muslimiinta ku nool dalka UK ayaa iyagana la filayaa inay soomaan ku dhawaad 16 saacadood. waxaa ugu dambeeya liiskeena magaalooyinka iyo wadamada muslimiinta ku nool ay soomaan saacadaha ugu dheer France. muslimiinta ku nool caasimada dalka France ee Paris ayaa sooma ku dhawaad 16 saacadood. dhanka kale waxaa jira wadamo muslimiinta ku nool ay soomaan saacadaha ugu yar adduunka marka loo barbar dhigo wadamadii aan soo sheegnay. sidaan wax yar ka hor soo sheegnay, sanadkan waxaa saacadaha ugu yar soomaya muslimiinta ku nool caasimada dalka New Zealand ee Christchurch, waana 11 saacadood iyo 12 daqiiqo. magaalada xigta ee muslimiinta ku nool ay saacadaha ugu yar soomayaan sanadkan waa caasimada dalka Uruguay, Montevideo, waxayna soomayaan 11 saacadood iyo 50 daqiiqo. muslimiinta ku nool caasimada dalka South Africa ayaa kaalinta saddexaad kaga jira magaalooyinka ugu saacadaha gaaban soonka, waxayna sanadkan soomayaan 12 saacadood iyo 28 daqiiqo. caasimada dalka Argentine, muslimiinta ku nool ayaa sanadkan soomaya 12 saacadood iyo 36 daqiiqo. muslimiinta ku nool caasimada dalka Chile ee Puerto ayaa sanadkan liiska soo galay iyagoo qiyaas ahaan soomi doona 12 saacadood iyo 45 daqiiqo. haddii aan qaarad u dul istaagno saacadaha sanadkan ay soomayaan muslimiinta ku nool dunida, waxaan ku hormarinaynaa qaaradda Afrika. inta ugu badan wadamada Afrika ayaa laga soomayaa saacado isku mid ah, taasoo qiyaastii ah 12 ilaa 13 saacadood maalintii, marka laga reebo South Africa oo ah saacadaha laga soomayo 11 ilaa 12 saacadood maalintii. wadamada dhaca waqooyiga Afrika sida Morocco, Algeria, Tunisia iyo Masar ayaa sanadkan soomaya qiyaastii 13 saacadood maalintii. wadamada ku yaala bariga dhexe sida Imaaraadka, Qatar, Kuwait iyo Urdun ayaa sanadkan waxaa ka jira heerkul aad u sareeya, taas oo soonka ka dhigaysa mid aad uga adag muslimiinta ku nool wadamadan. saacadaha soonka ayayna ku kala duwan yihiin wadamadan, walow ay isku dhow yihiin, waxaana lagu qiyaasaa 14 ilaa 15 saacadood maalintii. inta badan wadamada ku yaala qaaradda Yurub, saacadaha ay soomaan muslimiinta waa yara dheer tahay. muslimiinta ku nool Greega, Talyaaniga iyo Spain saacadaha soonka waxay u dhaxaysaa 15 ilaa 16 saacadood. sidoo kale muslimiinta ku nool Faransiiska, Switzerland iyo Ingiriiska waxay soomayaan sanadkan 16 ilaa 17 saacadood maalintii. dadka ku nool wadamada Koonfurta America sida Brazil, Argentine, Chile iyo Uruguay waxay heli doonaan saacado soon u dhaxeeya 12 ilaa 13 saacadood, halka muslimiinta ku nool wadamada ku yaala waqooyiga America sida Mareykanka iyo Canada ay gaarayso saacadaha soonkoodu 15 ilaa 16 saacadood maalintii.
muslimiinta ku nool Thailand, Malaysia iyo Indonesia waxay soomi doonaan inta u dhaxaysa 12 ilaa 14 saacadood. Sidoo kale muslimiinta ku nool qaaradda Australia waxay iyagana soomi doonaan ku dhawaad 14 saacadood sanadkan. Isku soo wada duube, celceliska saacadaha soonka inta ugu badan dunida Islaamka waa inta u dhaxaysa 13 ilaa 14 saacadood. daawadayaal mawduucana maanta intaas ayuu ku egyahay. Waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iiday. Waad ku mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga ee aad ku bixisay daawashada muuqaalkan. Inta aan ku kulmi doono mawduucana xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.